السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وبرتي يوتيوب كوريالك شعبك sidee baa si fudud aad familkaaga ama asxaabtaada aad ku keeni kartaa dalka Jarmalka? Marka waxaan ka hadlayaa waxay tahay ma keeni kartaa dadkaas, hooyada ma keeni kartaa, dad kale ma keeni kartaa, muhiimadoodu ma ahan. Muuqaalkayga si qaas ah wuxuu uga hadlay doonaa sidee baad marka aad dadka aad u dacwoonaysid qofku rabo qofkaasi ha ahaado ama xaaskaaga ama saygaaga ama ilmahaaga ama dad kale hadii ay noqdaanba aad markaasi si fudud aad ugu soo wadi kartaa oo dalka Jarmalka u keeni kartaa adigoo markaasi maraya processka ka bilaabanaysa maalinta ugu horeysa ee sharciga lagu siiyo ilaa maalinta ugu dambaysa ee dadkaasi dalka Jarmalka yimaadaan oo ay sharciga qaataan. Marka qaabka processka aad mari doontid ayaan ka hadli doonaa. Ku soo dhawow marka ugu horeysa muuqaalkan una soo qaado shaahaaga si wacan oo degan u daawo muuqaalkan ilaa ma qaybta ugu dambaysa adigoo dhameystiranaya. Ku soo dhawow. isku soo noqod wanaagsan. fadlan haddaad bartayda horyaalka shacabka ee YouTube-ka ku cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ii saartid, like-tana aad ii saartid, wixii ra'yina aad hoos iyo commentiga aad igu reebtid. in aad muuqaalkan bilowgiisa ilaa iyo dhammaadka aad daawatid dhowr baarti ayuuna ka kooban yahay. marka ugu horeysa haddii muuqaalkan aad daawatid oo adiga aad doonaysa inaad dadkaaga u dacwootid oo dalka Jarmalka aad rabtid inaad keentid ama aad tahay dadka doonaya inay dalka Jarmalka yimaadaan oo markaasi ama family ahaan ama qaab kale lagu keeni karo dalka Jarmalka, waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan aad la wadaagtid dadka ku dacwoonaya ee raba in ay dalka Jarmalka kaaga dacwoodaan oo halkaas ay ku keenaan si markaa iyagana ay warbixintan ay uga faa'iidaan. muuqaalka ayaan guda gali doonaa insha Allah, waana soo koobayaa intii aan dadaali karo. muuqaalka waa dheer yahay laakiin waan ku dadaalayaa inaan soo koobto. wadanka waa timid, interview ayaad martay, markii sharciga lagu siiyo marka halkii ayaad hawl ka bilaabaysaa. sharcigii baa maanta lagu soo diray, adiga Axmed ah, adiga Xaliimo ah, adiga Faadumo ah, adiga Cabdulaahi ah. sharciga markaad maanta gacanta ku dhigtay halkii ayaad hawl ka bilaabaysaa. waa haddii aad rabtid inaad qof u dacwootid. marka ugu horeysa ee aad sharciga heshid ee sharcigaasi uu noqdo mid aad ku dacwoon kartid waxaad haysataa 2 isbuuc oo fursad ah. 2daas isbuuc ayaa waxaad ku xareysan kartaa dacwo haddii aad doonayso inaad qof u dacwootid. marka 2daas isbuuc ee aad fursadda haysatid haddii ay ku dhaafto waa nasiibka. marka ugu horeysa sharciga warqadaha sharciga lagu siiyo waxa ku qoran in aad isbuucyadaas aad fursad haysatid oo laga rabo sida ugu dhaqsiyaha badan inaad dacwo xareysatid. waxa dacwada ka xareysanaysa waxay tahay lawyer ayaa dacwada ku xareynaya. dacwadaasna waxa uu u diraya oo u gudbinaya maxkamadda inaad reerkaaga rabtid inaad soo wadatid ama qof kale inaad u dacwootid aad rabtid. sidaas darteed marka lagu soo jawaabana lawyerkaaga warqada ayuu kuu soo diraya, waxa uuna ku leeyahay familkaaga waad soo wadan kartaa maanta wixii ka bilowdo. marka lagu soo jawaabo oo lagu yiraahdo reerkaaga dacwada aad u xareysan kartaa, arinta koowaad ama hawsha koowaad waxaad ka bilaabaysaa oo aad u baahan tahay warqadahaaga dokumentiyadaada inaad diyaarsatid. dokumentiyadaada waxa ugu muhiimsan waxa waaye kuwa marka ugu horeysa aad dacwada ku xareysanaysid. tusaale kale maalintaad interviewga maraysay ayaa waxa aad tiri anigu waxaan leeyahay xaas haddii aad tahay, ilmana waan leeyahay. haddii aad markaa gabar tahana ama qof la qabo oo xaas ah tahana waxaad tiri anigu say baan leeyahay, ilmana waan leeyahay. marka warqada interviewga aad ku martay oo kale waxa la socota warqad ku qoran maalinta interviewga aad maraysay saygaaga magaciisa, sidoo kale ilmahaaga magacyadooda ama xaajiyadaada magaceeda iyo ilmahaaga magacyadooda. adiga markaa qofkaad u dacwoonaysay ayaa warqadaasi ku qoran dokumentigiisa iyo waxa uu yahay oo dhan baa ku qoran. warqadaas ayaa marka ugu horeysa waxaa laga rabaa maalinta aad dacwada aad bilaabaysid inaad
qofkaas aad u dirta aad u dacwoonaysid. qofkaas markaa warqadaas ayuu qaadanayaa. warqadaas markuu qaato muhiim waxa wuxuu xifdinayaa magaciisa iyo taariikhda uu dhashay iyo waxyaabaha kale ee si raacsan ee warqadaas ku qoran. waa muhiim inuu qofku waxaas og yahay, maskaxdiisana ku haysto. marka waxaad xareysanaysaa sidoo kale oo aad reerka u xareynaysaa waxa waaye baasabooro Soomaali ah. baasaboorka in markaasi uu qofkaas u xareysto waa muhiim, sababtoo ah qofka markaad soo wadaysid uu halkan imaanayo muhiim waayo dukumiinta Soomaali inuu haysto. waxa uu dalbanayaa baasaboorka Soomaaliga iyo warqadaha dhalashada la socoto. sidoo kale waxa laga rabaa inaad samaysatid warqada meherka, oo haddii aad wiil tahayna aad adiga iyo xaaskaaga warqadii aad isku mehersateen aad soo samaysatid. Soomaaliya badanaa ma lahan, laakiin waa inaad samaysataa. haddii aad gabar tahana adiga iyo xaajigaaga warqadii aad isku mehersateen waa inaad samaysataa. sidoo kale ilmaha iyo dhammaan reerka markaasi dacwada loo xareeyay kulligood waa inay haystaan baasaboor Soomaali ah, warqada dhalashada. reerkaaga markii ay samaysanayaan baasaboorada waqti ayay qaadanaysaa. warqadaha dhalashada tan meherka oo kale markii ay samaysanayaan waqti bay qaadanaysaa. marka waxaa muhiim ah oo aniga aan kugula talin lahaa intii reerka aadan soo wadin oo aadan keenin markaasi Kenya, kadib aadan ballan uga dhigin safaaradda, inaad isla markaasi intii ay waxyaabaha dukumiintiyadaas iyo baasabooradaas ay reerka ay u maqan yihiin inaad markaasi aad ballan uga dhigtid safaarad. haddii reerku ay Kenya ay yimaadaan waxyaabo badan baa kugu soo laga rabaa inaad bixiso. sidoo kale kiradoo kale Kenya gurigeeda waa qaali, waqti badan ay noqonaysaa inay sugaan oo dacwadaas intaad safaaradda aad ballan ka dhiganaysid waqti badan bay noqonaysaa. laakiin haddii aad markaas ballanta aad intii ay iyagu Soomaaliya aysan ka soo bixin ka hor aad samaysatid waa okay, way kuu fiican tahay. iyadoo markaasi ballantaasi ay taalo 2 bil ama 3 bil ka hor inaad reerkaaga si degan adigoona karkaba aadan samaynayn, qarash badanna tiro badanna aysan kugu bixin, orod badanna aadan galin, in si tartiiba ay reerkaaga markaasi iyadoo 1 bil camal ka dhiman tahay ay Kenya u yimaadaan. halka bil marka u dhamaatana ay safaaradda tagaan. marka intaas aad haysatiin waxa xiga waxay tahay sidee ayaad markaasi aad reerkaaga ama ballan ugu dhigi kartaa. muhiim waxa ah ballanta ka hor waxa muhiim ah inaad ogaatid halka aad rabtid inaad reerkaaga aad macnaha dacwada aad uga xariisid. tusaale kale Soomaaliya ma lahan safaarad uu leeyahay dalka Jarmalka, ma lahan. Kenya waxay ku leedahay dawladda Jarmalka safaarad ayay ku leedahay. safaaradda marka Kenya ayaa midda Ethiopia ka fudud. midda Kenya ayaana badanaa dadka Soomaalida ah ay dacwada ka xariistaan. ballanta safaaradda markaad ka dhigtid waxay qaadanaysaa muddo 2-3 bil, adiga waqtigii ay noqoto ayay qaadanaysaa. sidaasna ay processka qaybtoodii ugu horeysay ay ku maraan iyagu. marka intaas aad samaysid oo kale oo ay safaaradda markaasi u tagaan, waxaa laga rabaa qofka markaa weyn qofka ilmaha ama ahan qofka weyn waxa laga rabaa inuu xifdisan yahay. waxay tahay wixii adiga aad u sheegtay, wixii adiga markaa halka aan joogtay interviewga aad maraysay aad maxkamadda u sheegtay, dhammaan waxyaabahaasi qofka inuu xifdisan yahay waa ku muhiim. sababtoo ah markii adiga aad dhaadid qofka aad u dacwoonayso wuxuu dhashay 1900 waa sanadka ka soo qadba 1990kii bishii 8aad maalintii intaas ahayd. asna berita markuu tago safaaradda uu yiraahdo anigu taariikhdaas aan dhashay, laftirkeedu waa problem. marka waa muhiim in magacyada marka ugu horeysa aad qofkaani markaad u qortay magaca saxda ee aad u qortay sidoo u qoran yahay dhammaantood ay iswaafaqsan yihiin baasaboorada iyo kulli dukumiintigaaga. waxaa lagaaga rabaa waxay tahay muhiimadda koowaad intaada safaaradda tagin ka hor waqti badan ku bixi inaad iska hubisid dukumiintigu inuu sax yahay iyo in kale. marka maalintii markaa qofka xaajiyadaadu ama saygaaga looga yeero iyo ilmahaagaba safaaradda looga yeero oo ay tagaan, waa maalinta ugu horeysa waxaa laga rabaa interviewgaas ayaa lala yeelan doonaa oo safaaraddu ay la yeelan doontaa inay isla wixii adigu hore aad u sheegtay iyaguna ay u sheegaan. qaybta koowaad muuqaalkii intaas ayaan kusoo koobayaa.
halkaas ayaana kasii ambaqaadi doonaa qaybta labaad. la socod wanaagsan. aniguna waa Cabduqaadir Xasan Duuliye. muuqaalkan iyo muuqaalada kalena isha ku hay bartaan horyaalka shacabka ee YouTube. mac salaama ayaa idin rajeenaya.